Assalaamu calaykum. Waa mar kale iyo barnaamijka Excel-ka 10kii function ee ugu muhiimsanaa. Kii ugu dambeeyay 10aad ayaanu bilaabaynaa. Drop down list ayaa la yiraahdaa ama data validation. Data validation hore sidaan soo aragnayba waxaa la galayaa halkaas data ku qoran tahay kadib data list halka ku qoran tahay si dhex tagaysa halka source ku qoran tahay dhamanaysa wada doonaysa source markaa daalatid okay ayaa leedahay. Okay markaad tiraahdo kadib list buu kuu sameynaya kolba midkaad dooratid iyuu kuu soo saaraya informationkiisa ama datahiisa iyo informationki macluumaadkiisa iyuu kuu soo wada saaraya telefonkiisa emailkiisa magaciisa iyo lacagta uu qaadanay badanaa ciidamada ardayda markii data aad u fara badan dad aad u fara badan markay yihiin yaa sida si sahlan loogu samaystaa marka drop down list ama data validation baa la yiraahdaa horeyna waan soo aragnay ahayd markaas kana intaas uu geeyay barnaamij aad u gaaban laakiin aad u sahlan saasay tahay haddana aad muhiim u ah aad baad mahadsantihiin habeen wanaagsan ayaan idin rajaynayaa wixii kale ee dheeraad ah oo bilaabanaa halkan ha lagu xidhnaado.